السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا SMCC أما Somali Medical Consultant Center caloosha oo fadhida ama saxarada oo adkaata ma ahan cudur ee waa calaamad waxa ay ka turjumaysaa in ay mindhiciradaada shaqadooda aad u yar tahay. ma ahan dalkeena oo kaliya meelaha aadka looga cabto calool fadhiga. gudaha Mareykanka waxaa sanad waliba lagu qaras gareeyaa in ka badan $250 milyan si loo yareeyo ama loo daaweeyo calool fadhiga. maanta waxa aan ku soo bandhigi doonaa 4 shay oo haddii aad sameyso ka caawin karto in ay caloosha ku fadhiisato ama ay saxarada ku adkaato. Lambar 1 cabida biyaha cad. caloosha oo fadhida ama saxarada oo adkaata waxaa qayb ka ah in ay abaar ama biyo la'aan ay ka jirto gudaha mindhicirada, taas oo keenta in ay mindhicirada socodsiin waayaan qashinka ku jira gudaha mindhicirada, waxaana dhacda in uu qashinkaas ku qalalo meeshaas. qodobka labaad waa in aad bilowdaa ama aad joogtaysaa cunista cuntooyinka qolofta leh ee aad cunto waxa ay saacidayaan in calooshaada ay sameyso dhaqdhaqaaq. waxaana ka mid ah cuntooyinkaas babaayga, bataatiga, cambaha, sisinta, mooska. guud ahaan waa miro aad ka heli karto dalkeena. waxa ayna leeyihiin qolof iyo miiq. waxa aad cunooyinka qaar markii aad cunto sida cambaha ama babaayga oo kale aad dareemaysaa in ay leeyihiin wax xarig oo kale ah, kuwaas oo xoqitaan ku sameeya ama kacaan ku rida qashinka ku jira caloosha si ay dibadda u soo saarto. qodobka saddexaad waa jimicsiga. inta badan uma maleyno in faa'iido uu u leeyahay jirkeena, laakiin waa qayb ama laf dhabarta caafimaadka. marka aad dhaqdhaqaaq sameyso, jirka waxa uu bilaabaa burburinta cunnada aad cunto. haddii aadan dhaqdhaqaaqin ama aadan wax dhaqaaq ah sameynin, jirkaaga waxaa ku dhacay guud ahaan cunnada aad cuntay in lagu keydiyo, kadibna waxa aad noqonaysaa qofkan aadka u cayilan, waxaadna halis u galaysaa cudurrada dilaaga ah sida dhiig karka, sokorta, kolestaroolka, ugu dambeyn wadnaha oo ku istaaga. qodobka afaraad ee ugu dambeeya waa in aad cuntaa cunno dheelitiran si uu caafimaadkaaga ama calooshaada ay ula qabsato cunnooyinka aad cunayso.